السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السعودي وهذا مركز لي مقال عصب maanta shacabka reer Hargeysa waxaan dhex dhigi doonaa su'aal ah dadka caanka ah ee social media ku jira qofkeebaad ka saar leedo aan u qalmin su'aashaasan maanta weydiin doonaa soo dhawaad saaxiibyaal mar kale fadlan haddii tahay markii kugu horeysa soo boqotay halkan soo saar saaxiibada la wadaag saaxiibyaal soo dhawaada garabkayga waxa taagan mid kamid ah shacabka reer Hargeysa barnaamijka ka qayb qaadanaya walaal su'aal baan ku weydiinaa su'aashaas oo ah dadka caanka ah social media ku jira qofkeebaad oranaysa sanadkan 25 iskaga bax uma qalantina ku jirta social media qofka odhan ma qalantida ka fadhiiso Xuseeno jininka la dhan ka saari la waa iska fadhiiso waa taashay madi lahayna way ku nacday ifriday qabiil iyo balaayin bad meesha la soo taagantay iska saaxooday weyna waatay ka saaxmiga marka sababta ka fadhiisaaras taa wax macna wax la faa'iido qasaare meesha ka hadlaana ma jirto meesha soo dhex taagan wala soo dhawaado magaca ku bilaabaya dadka caanka social media ku jira qofkeebad korle 2025 iskaga bax ma qalantida niyo magacayga horta waa fiix magaran saa dadka horta socdaal ma ka baxay ku jira mee niyo 25 23 ba la socdaal ma qabno social media ilaahay baan jeclay dadka caagad buu la dhacay aniga halkayga ka soo xaar socdaalow wala soo dhaw adoo magaca ku bilaabaya dadka social media ku jira caanka qofkeebad korle 2025 ma qalantida iskaga bax bismillah magacaygu waxa weeyaan xanaan qofka aan social media ka saari lahaa waxa weeyaan kan la dhaho magaciisa xaliye kaasi ka saari lahaa waa inigaasi dumarkii wuu ku fasaaday dumarkii yaragii buu isku dirayaa suuqii buu naga xidhay suuqii naga xidhay kaasi ka saari lahaaba ee la dhaho xaliye nin hadda ka saari kaasi ka saari lahaa runahaatii teknolojiyadda horta way nagu dabargatay teknolojiyadda Asia nimka isticmaalaa sidaas kale runta wanaagsan dul caadiyada rooriye baleelay kama bakar baan joog jirnay saas kale iyo kama iyo ramaso runahaantii teknolojiyadda aad bay dhalinyarada dambe ugu dabargatay ee dhashay wada xilligooda kala soo galay ilaa 2010 ilaa 2010 wallahi runahaantii qaar badan oo aan teknolojiyadda ku dabargatay soo ugu dabargatay aanu faasay xawayaan gaar ahaan isagoo bareefad dhigtay ayuu YouTube sheeganaya amba wuxuu sheeganaya baraha bulshada ayuu ka soo aanbaxaya sidaas kale isagoo baahi diinad ka maqan runta wanaagsan ilan ka yar xagga luqadaha kama dhisna xagga diinta kama dhisna laakiin wadan aan la aqoonsanay iska dhashay wax walba iska hadlaya sidaas kale waxaan kula talinaa walaaladeen wallahi qaar kamid ah in madrasada badana lagu xareeyo waayo qaar in dhaqankii wax laga garanayaan kama garanayaan fanaaniintii dambe gabayadii abwaaninteennii hore sida gaariyo kale sida timacada kale waxba kama garanayaan wala soo dhawaado magaca ku bilaabaya dadka caanka social media ku jira nooc kasta bahaade qofkiibad korle 25 iskaga bax ma qalantida ku jirtay walaalkay waan dhawaay markaa magacayga Cabdixakiin horta qof caan oo ka saari lahaa hadda daar cali soo ka saari lahaa waayo qofkaas uu ma qalmada iskaga baxba wada waqtigaagina u dhacay dhiidkaagii ya waayo hadda xilligii salaad ku dhe حتى صلاة حتى دي اللي دام يورم لا يفوز أو تحتاجين سجاشن كوا وقف كلا المار كوي نكس صار برد كعانك السوشيال ميديا كتير قف كيف كل لو كنا شلات المقلة تيسكب والله هرتوا دوا هاي مقعي صابرين والله الوحى كسر لها كمين قاول السوشيال ميديا كم حاكردين لا صوت وصار سامحين ودقن حنتها وقف دقن حواي واحد كسر كردين سمارهن رب درد بس واحد كسر كردين لو كسر سامحين حاليا اللي محل ما كسر صوت محيط ونقد ما الله يا يدي ولا سودو وضع magaca ku bilaabaya su'aal baan ku weydiinaa su'aashaas waxa weeye dadka caanka social media ku jira TikTok Facebook YouTube intaba qofkiibad korle iskaga bax horta magacaygu waa Saciid Cumar waxaan isku oran lahaa Xuseen Oojiyo yow adigu iska cibaadeysan ku oran lahaa adoo hadlaya dhiman saaban maaleynaya iska cibaadeyso ka bax furanka Xuseen Oojiyo korle iskaga bax social media ha sababta maxay tahay وقيل بدني وقبيلة السويين كي social media كتير قف كيفات كورنيس شنو لات iskaga bax social media هو مقلنت qof caan oo inta social media ku jirta anoo qof caan oo korna la social media 2025 uma qalintiis iskaga bax waa nin guri barwaaqo loo dhaxan leeyahay social media oo ku gabowday ilaahay wax isticmaalaysay 15 ku daawanayay maxay tahay niyo ka fadhiisay social media guri barwaaqo oday baad noqotay minka
dheedkaagu u dhacay guri barwaaqo dheedkiisa uu dhacay waa kaa guri barwaaqan ka saaraya dadka caanka ee social media ku jira qofkiibad kulan la isaga bax sanadka 2025 uma qalantina ku soo jirtay magacayga Cabdiqaadir Caydi qofka waan kulan lahaa waxa weeye Salawaandheere ninkaas aan la iskaga baxnay oo garaba caanka meel fiican bay ka bilaashay meel xun ka bilaaway marka ninkaas aan la macaash dheerna ku raad goos inta badan murmaan ninkaas aan la iskaga bax oo reer barwaaqaha badaxiyooda ku joogaan boo iskaga baxaan marka ninkaas aan ka saarna sababta markaa ku saaraysaa maxay waxaan sababta baalkii maxaan dhaqankii reer barwaaqo ka baxay ordina adag maaha marka in la goodgees la raaxo bay isla jikaartamayaan waxaan leeyahay reer waxa lagu ma aqoon hadalka marun baad la jireen ninkaas aan ka saar lahaa marka sababta darteed saaxiib soo dhow adoo magaca ku bilaabaya dadka caanka ee social media ku jira qofkiibad korneed 2025 uma qalantina iska bax ninka dhifiq la dhaco dhifiq sababta markaa ku saartaa maxay ninkaas waa nin weyn oo 29 jeer baa ku jira life kor la cibaadayso odayaal xiliga ay cibaadaystaan marka leefka darteed uga saaraysaa هذا ميدي صلاة توقف إلى صلاة سود عفنا يعني صلاة محمد كني ودح في ديانة توق aad iyo aad maasant dadka caanka ee social media ku jira qofkiibad korneed isaga bax 2025 uma qalantina ku soo jirtay والله صاحب رضا channel aad min dhowhay aad baan page-kaaga ugu xiranahay magacayguna waa Bilaal Cabdi Ciise wallahi qofka aan ka oran lahaa maanta ama aan baraha bulshada ka saari lahaa wuxuu noqon lahaa dadkan maartaa soo geliya dhaqan xumadee ama dagaaladan maartaa dhaca markii dagaaladu dhacaan oo kale dadka soo gudbiya ee dhaha dagaal baalka ka dhacay waxyaabaha halka ka dhacay anu dadkaasan ka saari lahaa baraha bulshada gaar ahaan TikTok dadkaasan ka saari lahaa rag iyo dumarba yaa kamid ah dadka mid ka magacaabaan balaba wallaahi horta waxaa ka mid ah dee iminka magacyadooda aad uma wada xasuusan laakiin way badan yihiin gowdhe way badan yihiin waxaa la yidhi hadalka lama faahfaahiye intaasan ku saakani waxaan leeyahay dadkaana niyow adduunyada niyow waxaan waa magacune magacan meel caadi ah baa laga raadiyay yaa magac meel caadi ah baa laga raadiyay halkaas kale laga raadiyo dagaalada iyo colaadaha dadka saameynta ku leh laga raadiyo niyow intaas ku soo koobaya soo dhawaado magaca ku bilaabaya dadka caanka ee social media ku jira qofkiibad kulan la isaga bax 2025 عليكم السلام waan kusoo dhawahay waan ku dhawahay waxa dad badan baa laga saarayaa waxa kamid ah difiq oo kale sida baabulaahi oo kale dadka waxaan leenahay maayi khaliifo iyadana dadkaas oo dhan laga saaray baan leenahay waxaan leenahay waxa la wixii dhaqan xumo wada iyo dad badan oo social media ku jira waa u baahan laga saaro caanka ee social media ku jira qofkiibad kulan 2025 isaga bax uma qalantina ku soo jirtay alxamdulillah magacayga waxaa la jalmadoon makadoon naardiid social media aan waxaan oran lahaa iskaga bax xiseen waxaan oran lahaa xiseen ma garanaysaa ninka la yiraahdo isoo sheeg ninka buuran muxuu ah dhifiq ma la iskaga bax waayo sababtoo ah waqtigaaga waa soo dhaaftay 70 jir baad maraysaa maadaama 70 jir marayso waqtigaaga cibaado kaga faa'iideyso digriga ilaahay iyo masaajidada iyo diinta ilaahay iska baran laanu taasana la dhifiq soo jeedin lahaa waayo waqti TikTok laga nikiyo ma joogno 2025 ma la maraya marka waxa la yiraahdaa diyo reefs male hore socod male dib socod male marka waxa kugu la talin lahaa anigu hore u soco laakiin dib ha u socon marka waxa la yiraahdaa jeclaysan magaalo miyibaad ku dambeeyna ama dhalisaan loo qob dhiirka heeba way ku dhigatay dhifiqow markaas ka baxmaan leh